waxaad tahay saxaabiyad qalbigaagana wuxuu ku xiran yahay fadhiyada iyo kulamada nebiga sallallahu calayhi wasallam, halkaas oo aad ka helayso raaxo iyo deganaan. Iftiinka wejigiisana waxa uu farxad siinayaa qalbigaaga, codkiisa macaanta badanna waxa uu ka ontirayaa haraadka. waa fadhiyo laga wada helayo diin iyo adduunba. idinkoo sida u wada fadhiyo ayaa waxaa idin yimid nin lagu magacaabo Aqrac binu Xaabis. fadhigana waxaa joogay Xasan binu Cali binu Abi Taalib, isaga oo yar ayuu meesha ku ciyaarayay. Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa intuu qaaday markaasi u dhunkaday. Aqrac binu Xaabis ayaa waxa uu yidhi, waxaan leeyahay 10 wiil, weligayna midkood ma aanan dhunkan. Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa wuxuu yidhi markaas, qofkii aan naxariisan looma naxariisto. mar kale nebiga waxa u yimid nin reer baadiye ah iyadoo Xasan uu agtiisa ku ciyaarayay. Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa intuu qaaday ayuu laabta gashtay oo dhunkaday. ninkii reer baadiyaha ahaa ayaa waxa uu yidhi, ma waxaa dhunkantaan carruurta, balse annagu ma dhunkanno. Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa waxa uu yidhi markaas, maxaan kuu samayn karaa hadduu Allah subxaanahu wa tacaala qalbigaaga ka saaray naxariista? saxaabiyadda, si wanaagsan hadalkan ugu dhagayso qalbigaaga iyo caqligaaga. qofka aan naxariisan looma naxariisto. cadaaladda Alle subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ah in abaalmarinta iyo ficilka uu ka dhigay isku mid. qofkii wanaag sameeyo waxa uu helayaa wanaag, qofkii xumaan sameeyana waxa uu helayaa xumaan. Fircoon wixii loo halaagay waxay ahaayeen isaga ayaa markii hore ku faani jiray inuu leeyahay webiyada Masar. markaasna Allah subxaanahu wa tacaala ayaa biyaha badda dushiisa ka keenay. Nebi Yuusuf calayhi salaam walaalihiis waxay ku iibsadeen xoogaa lacag ah. waqti yar kadibna iyaga oo socdo ayaaba gacmaha u taagtay si uu wax u siiyo. qofka ugu horeeyo ee loo labisi doono qiyaamaha waa Nebi Ibraahim calayhi salaam. taasna waxaa u sabab ah dabkii ay ku rideen tolkiisa inuu gubay dharkiisii. nolosha adduunka waa mid wareegto ah. wanaag haddii aad bixiso waxaa helaysaa wanaag, shar haddii aad bixisana waxaa helaysaa shar. sadaqo walbo aad siinayso qof maskiin ah waxay kuu tahay dhufays. saxaabiyadda, islaamku waa diin naxariis iyo dhimrin. qofkii qalbigiisa aysan ku jirin wax naxariis ahna waa qof aan si fiican u fahmin islaamka. maalin maalmaha ka mid ah saxaabada ayaa nebiga waxay u raaceen safar. nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa saxaabadiisa keligood meel uga tegay si uu xoogaa dan ah u soo qabsado. intii uu ka maqnaa nebiga ayaa waxay arkeen shimbir iyo ilmaheeda. markaasna waxay ka soo qaateen ilmihii. shimbirkii ayaa wuxuu wareegayay dushooda isagoo baalasha garaacayo. nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa markuu u yimid wuxuu yidhi, yaa ilmaheeda ka taabtay, wuxuuna amray inay u celiyaan. islaamku waa diin naxariis. nebiguna naxariistiisa waxay gaartay heer uu ilaaliyo shimbir dareenkiisa. qalbiga oo la kabo ayaa ka muhiimsan lafaha oo la kabo, waayo xanuunka qalbiga ayaa daran. jabka lafaha waa laga caafimaadayaa, balse qalbiga oo la dhaawaco waa xanuun weligiis baaqi ahaanayo. nebiga sallallahu calayhi wasallamna raalli kuma uusan noqon qofna qof kale inuu dhibo oo uu qalbi jebiyo. saxaabiyadda, hadallada qaar ee aad ku dhahayso saaxiibta markaa la wada joogtaan asxaabtiina si loogu qoslo waxaa laga yaabaa inuu qalbigeeda si aad ah u saameeyo. kulankaas iyo qosolkaas way dhammaanayaan, balse hadalka aad ku tiri saaxiibta waxaa laga yaabaa habeenno badan inay ka seexan weyso. dareenka oo la ilaaliyo waa cibaado sida soonka iyo salaadaba. saxaabiyadda, dadka inaad farxad siiso kaagama baahno hanti badan ee waxay kaaga baahan tahay qalbi weyn. qof inaad dhaawacdo uma baahno hub iyo awood ee keliya waxaa ku dhaawici kartaa hal kelimad. saxaabiyadda, qofna naftiisa ha ugu abuurin cuqdad. saxaabiyadda, qofna naftiisa ha ugu abuurin cuqdad. saxaabiyadda, qofna naftiisa ha ugu abuurin cuqdad.